wada hadallada socday ilaa shalay goor dambe ayaa go'aan ku gaarnay baladana inaanu maanta la isku soo noqdo oo saaka subaxba hadana wada hadallo hordhi ay bilowdeen sida laajigeed horta way iska xidhnaayeen oo dukaamadii iyo meheradihii sidii bay u xidhnaayeen oo de kolley niman dacwad ku jiraanu nahay oo wax diidan wixii aanu diidanayn ugu dambeyn maanta alxamdulillah maanta hawshii iyada ahayd waxa ay ku soo dhamaatay si guul ah Islii Business Community haddii aanu nahay arrinta guul baan ka soo hoynay nimankii waxa aanu laazim kaga dhignay dawladda ahaa oo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska canshuuraha intuba ay ka socdeen waxaanu laazim kaga dhignay oo aanu ogolaysiinay inay canshuurtu sidii uun ahaato 3 milyan containerka in lagu soo saaro oo ay ka noqdaan 12 milyan oo aan macquul baahayn oo caqligaba geli karaynin marka waxaad sheegtay inay canshuurtii dhimeen oo intii hore 3 milyan ahayd ku joojiyeen marka wax damaanada oo qoraala oo la isku haleyn karo ma kala qorateen de waxani waa dawladda moogtahay iyaduna maxaan ku idhahdaa go'aamadeeda soo saaraysa hadii la aqbalayo la qaadan karayo oo de heshiis noo qoro de oran mayno laakiin de waxaabay ku fududahayba de galabtadan ba muxuu ahay containeradii qaarkood baaba la canshuurayaaba oo intii uun ay ahayd lagu canshuuraya waxa haday wax ka soo noqdaana de anaguna meeshii baanu ku noqonaynaayo hadii ilaahay xukumayo sidii baanu qalabka u dhigayno albaabadii dukaamada aanu u xidhaynaa waanu wada gaadhnay de heshiis akhyaari ay heshiisay iyo go'aamo la wada gaadhay oo ninaba kaba noqonaynin waliba intaa waxa ku raaca Cabdiraxmaan oo aanan ku sheegin waxaanu isla garanay laba guddi oo guddiino ganacsatada iyadan Islii Business Community uu ka socdo iyo guddi dawladda ka socdo labada guddi markii ay dhacdo hadiiba si ay dhacayso intaan wax canshuur ah aan lagu soo rogin oo iyadoo kadiisaan dushana laga saarin inaanu wada hadallo ka yeelano oo aanu ka fadhiisano waxaan ogolayn hadda kadib aan dushana laga keenin waamadaasaan isla qaadanay marka agreement-kaba taasa ka fiicanba wax hadii lagaalada tashanayo oo lagu leeyahay waa arinta maxaynu ka yeelaa taladii baad wax ku leedahay qof laga qayb galiyay baa